waxaana si daraa magaca magaaladan in la xumeeyay doorashadii loo han weynaana la qalloociyay maantana qora caaradiisa dadka lagu qoray taas dadka waxay ka fogeynaysaa dawladnimada waxay calaamad su'aal gelinaysaa waxyaabo fara badan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka soo fiyoobaan inay ka soo bogsanayeen arrin fiican ma aha maadaama laga dhawaajiyay arrinta dastuurka waxaa fadhiya halkaas nin odaya oo wada taqaaniin oo madaxweyne Faroole la yiraahdo aniga aqoon uma lahayn waxaan isku baranay dawladnimada madaxaan isla galnay laakiin waxay ku soo dhamaatay inaan wada fariisano oo dastuur meesha ka soo baxo dad badan ugu eedeeya waxaan aaminsanahay aniga maanta haddii wax lagu amaano ay jiraan inay ahaaday in lagu amaano meesha aan iskala soo bilaabnay iyo meesha aan ku dhamayno ah maanta inaan nahay dad family friends aan waxaan hubaa Soomaaliya inaysan colaad u baahnayn in la heshiiyo oo dastuur la soo saaro waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay mar haddii dastuurka uu ka yimiday wada hadal iyo isu tanaasul iyo isu galaasho taasaa muhiima inaan xoojino taas waayo fariinta aan dirayna annaga taas waayo tan aan rabno in doorashada lagu gaaro waxaan rabnaa meesha inay ka soo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed ku faanto ku tiirsato xanuunka maanta ay uga bogsoodaan